madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan oo ay weheliyaan diblomaasiyiin kale. kulanka madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen iyo Ambassador James Swan oo ahaa mid saacado qaatay waxa ay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka, xaqiijinta amniga goobaha doorashada lagu qabanayo iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadkii laga soo masaafuriyay magaalada Laascaanood. James Swan, wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya, ayaa madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ugu mahadceliyay doorka muhiimka ah ee uu ka qaatay dhexdhexaadinta madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo ka heshiiyay qodobadii ay isku khilaafsanayeen. James Swan ayaa dhanka kale madaxweynaha ku bogaadiyay inuu si dardargeliyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka. dhanka kale Laftagareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa galiinkii dambe ee maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kadib safar shaqo oo maalmo qaatay uu uga maqnaa magaalada Muqdisho. madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ayaa socdaalkiisa magaalada Muqdisho waxa uu ahaa sidii garwadeen uga noqon lahaa khilaafka u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo oo ugu dambeyn madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ku guuleystay in khilaafkaasi ay ka heshiiyaan madaxda uga sareysa dalka. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa labada gole dowladda, saraakiisha laamaha amniga, maamulka kan degmada Baydhabo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada uga mahadceliyay.